waxaan doonayaa inaan u hambalyeeyo maayir cabdikariin axmed mooge anigoo ka yimid waddanka Finland ogna dadka ummadda sida wax u wada qabsadaan waxaynu maanta haynaa wadadii horumarka waxaan leeyahay Somaliland magacayga waa xildhibaanooda waddanka Finland ayaan joogay ku noolaa 30 sano ugu dambeeyay koob iyo 20 sano ugu dambeeyay waxaan ku jiray golaha deegaanka waxaan maanta dareenkayga doonayaa inaan la qaybsado maayirka oo maanta golaha baaqay ololaha nadaafadda waxaan leeyahay maayirka caasimadda waddanka Somaliland waxaan leeyahay maayir hambalyo dadaal badan baad haysaa waxaan leeyahay hawsha badan ee qabatay iyo dhiiranaanta kuwad annaguna meel kastaan joogno soo shicibka ku dhinac jooga ayaan annaguna ku dhinac joognaa haatanna waxa dhinacayga taagan Rooda Cabdilaahi Xasan Rooda waxay kamid ahay xildhibaanada dalkaasi Finland ee golaha deegaanka ee muddo dhan 12 sano maanta waxay ku sugan tahay Somaliland isla markaana waxay la kulantay ololaha umayrka caasimadda ku baaqayn la isugu soo baxay iska wuxuu qabsay lagu nadiifinayo dooxa magaalada Hargeysa Rooda saaka waxa weydiinaa dareenkeeda ku aadan maadaama ay kamid ahay qurbo joogti dalka isla markaana xildhibaanada golaha deegaanka ee wadamo kale oo aan dalkeena ahayn bal dareenkeeda dalka iyo dalkan maanta Somaliland ay joogto soo dhaw Rooda aad iyo aad baan u dhawahay Naciima waad ku mahadsan tahay runtii dareenkayga maanta ma qiyaasi karaan waxaan dareemayaa jiriiraca waqti walba jirka ay ku taagan ummaddu waxay wax noqotaa marka iyagu isku tashato isku tashiguna wuxuu ku yimaadaa markaad ogaatid quwadda shicibkaaga maanta waxaan aad iyo aad u hambalyaynayaa shacabka reer Somaliland gaar ahaan caasimadda oon leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaad muujiseen quwaddiinii waxaad muujiseen dadaalkiinii waxaad muujiseen baahidiina aad doonaysaan farkaliya fool ma dhaqdo maayir kaliya waxba qaban maayo xukuumad kaliya waxba qaban mayso haddana shicibku iyagoo isku duuba waxba aan wax wada qabsan taasina waa tii Somaliland horumarka ku gaadhay shicib wanaagsan oo u baahan in si fiican loo hago waxa la xukuumadda madaxweyne Muuse Bixi Cabdi garwadeenka u yahay waxaad u muujiseen dadaal badan iyo inay dadku isku tashadaan waxaan anoo maanta khudbad joogana aan jecelahay inaan maanta nu soo qaatay inaan ka qayb noqdo shacabkayga oo dareenkooda la qaybsado wax la qabto marka guud ahaaneed la helaa gaar ahaaneedna la helaa shacabka reer Somaliland yar iyo weyn yaan loo kala xarin saaka dareen noocay bay ku sameynaysaa in shacabkii reer Hargeysa oo hooyo leh oo caruur leh oo oday leh oo islaan leh oo dhalinyar leh in maanta intay baaqi maayirka qaateen isla markaana ay halkaas ugu soo baxeen sawir noocay ay ku sameynaysaa والله سوى aad u qurux badan bay sameynaysaa sawir dareenkiisa watay sameynaysaa iyadoo 6 subaxnimo la gaarin dad soo baxaan iyadoo haadaan ilaa 7 sii sugaan waa wax weynaan la qiyaas karayn maxaad kula talinaysaa shacabka reer Somaliland gaar ahaan shacabka caasimadda waxaan kula talinayaa idinkoo wada duuban oo maayirkiina iyo golihiina deegaanka garab taagan wax wada qabsada qabyaalada waa qurunaha laga tago sawir waxaan yara sawirta dalkii aad ka timi maadaama aad 12 sano muddo gaaraysa aad kamid ahayd xildhibaanada golaha deegaanka ee dalka Finland ee waliba magaalada aad ka degan tahay iyo sawirka saaka Finland waa wadan muddo badan xadaha waa wadan wax wada qabsiga ku gaaray horumarka iyo waana 5 milyan haddana wadanka xagga waxbarashada xagga dhaqaalaha iyo xagga aqoontaba nabadoonka u haysta waxay ku gaadheen waa aqoonta iyo wada jirka iyo la xijaclada wadankooda u hayaan waxaan leeyahay Somaliland maanta wadadii haysa waynu gaadhaynaa meesha ay Finland iyo reerba gaadheen nadaafaduna waa iimaanka ayay ka qayb laxad la tahay waxaan leeyahay aynu dadkeena iyo dalkeena wada dhisano taas ayaynu horumar ku gaadhaynaa fooq weyno kaliya dhisaaxbay nooma qabanaya isagoo dooxeeni ama aqaladeena horteedu ay yihiin
golaha deegaanka ee guud ahaan Soomaaliland ma aha caasimadda oo kaliya maxaad kula talinaysaa maadaama muddada inta leeg aad ka mid ahayd golaha deegaanka guud ahaan golaha deegaanka ee Soomaaliland ee ku nool gobolada dalka xagga horumarka waxa ku suntan ilaahay ha sharfe Cabdishakuur ma cidin magaalooyinkii kale ina way ku daba jiraan sida magabiilayo kale Maxamed Amiin wax badan buu ka qabtay magaaladiisa waxaan hubaa maanta sida ay uga dhacday Hargeysa inay uga dhici doontana Burco waxaan rajaynayaa in khamiisteeda ama jimcaha dambana cilaan laga bixiyo magaalada Burco oo aanu heegana aan ka qayb qaato